السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا Somali Health Lifestyle وان channel كألا باكلا حديدان وحي عافمادك قصية waxaynu intii hore dhan soo wadnay waxay hayeen mawduucii ku saabsanayd caruurta iyo caafimaadkooda hadda waxaynu maxay ku sii xigsiinaynaa inkastoo inaan ka tagay mawduucda caruurta oo soo noqon doona haddana waxaan ku xigsiinaynaa mawduucda la xiriira health lifestyle oo ah in aad hab caafimaad ku jiro u noolaato waayahay waxa jira maxay dad sameeya waxyaabo maxay caafimaadkooda dib u keeni kara iyo dad sameeya caadooyin fiican oo caafimaadkooda kor u sii qaadi kara marka maanta kale waxa aynu diiradda yar saarana waxa weeyaan inta shay ama mesela dhowr maxay caado oo xun oo keeni kara qofka in pressure ku dhufto mesela maxay yani pressurekiisa kor kaco ama dhowr caado oo maxay qofku sameyn karo oo maxay hoos u dhigi kara pressurekiisa ku horeyna kuwa yoga kor u qaadi kara pressureka inuu qofku yahay smoker oo deegaanka markasta uu sigaar cabo taas waxay kamid tahay waxyaabaha yani maxay pressurekiisa kor u qaadaya ee keeni kara inuu qofkaas noqdo qof yani maxay markasta la eldaran pressure maxay yani aad u sareeya in uu maxay stress ku jiro oo maxay hay'adiisa xogaa warwar badan ku furan yahay waxay kamid tahay waxyaabaha maxay kor u qaada in uu pressurekaasi magaranaysa kor u kaco cuntooyinka uu qofku cuno haddii ay magaranaysa fatka ku badan yahay ama mesela subag iyo dufanka aad ugu badan yahay waxa ay keenaysaa in uu pressureku kor u kaco oo magaranaysa markasta uu noqdo qof la dhacaya maxay pressureka ama maxay dhiig karka waayahay haddii oo mesela cusbada ama mesela milixdu ay ku badan tahay cuntada markasta oo waxyaabaha dhanaan oo aad u jecel yahay marka laga yimaado mesela liin dhanaanta iyo liin macaanta iyo waxyaabaha kale iska fruitska dhanaan marka laga yimaado laakiin sida milixda oo kale oo aad u isticmaalayo oo milixda aad ugu darsanayo waxa ay keenaysaa in uu dhiig kar markasta uu la soo dirsi karo ay waqti ama anytime haddii uu mesela qofkaasi kafeega iyo bunka iyo waxyaabahaas maartay maxay maskaxda toosiya oo aad u isticmaalo waxa uu halis u yahay in uu ku dhufto baalka loo yaqaano pressureku ama mesela maxay dhiigkarkaas mar dhowna keeni kara in stroke ku dhufto oo mesela failure iyo wax noocaas ay ku dhuftaan oo dhinac uu qalalo tan afartuba qalalinba ama meel kale uu dhiig kaga furmi karo ila maskaxdu kaliya dhiig kuma furmee waayahay waxyaabaha maxay keeni kara inuu pressureka qofku ku siyaado waxa weeye qof iska sedentary life ku jira yani iska fadhiya oo aan exercise badan sameynin يعني cuntada cunaya kadibna seexanaya soo toosaya ama in badan TV-ga iska hor fadhiya waxa laga yaabaa dhowr cisho inaanu dibadda u bixinbo oo TV-gu iska daawado ama mesela uu soo tooso oo mobilka iyo xaasun ku jeedo oo aanu activity fiican jirkiisa aan ku jirin inkastoo maxay qofku haddii uu magaranaysa uu iska dhidiyo markasta uu sii dhawaanayo xagga maxay caafimaadka markastoo dhididku kugu reegana aan maxay xagga caafimaadka u socon xagga maxay xanuunka u socoto waayahay waxa maxay ku xijinayna wax weeyaan waxyaabaha keeni kara in uu qofku magaranaysa kor u qaado caafimaadkiisa xagga pressureka maxay si uu la dagaalami karo in uu stresska iska yareeyo aan sheegnay in uu maxay sigaarka iska yareeyo aan sheegnay in uu alcoholka iyo kafeega iyo bunka iyo xaso dhan fara ka qaado fadhigo dhan fara ka qaado oo socdo oo maxay aad siga dhidiyo waxa maxay yani kor u qaadi kara wax weey waa cuntadiisa cuntooyinka maxay fiber ku jiro sida mesela yani fuulka iyo harakooga iyo cuntooyinka cuni jirnay galeyda iyo garowga iyo cuntooyinkaas oo dhami hilibka maxay cad mesela sida maxay ka digaaga ka kalluunka waxyaabahaas oo dhami waxay yihiin cuntooyin fiican oo yani markasta kor u qaadaya maxay immunity-gaaga awoodda maxay aad u leedahay inaad maxay xanuuno fara badan aanay ku soo dhawaanin oo pressureku kamid yahay oo macaanku kamid yahay oo xanuunada maxay yani gastriga iyo xaas dhan kamid yihiin waxa maxay xanuunada kaliya ku dhacay kamid yihiin waxa maxay la gudboon qofka in uu magaranaysaay exercise sameeyo aad sigidiyo si uu gubo sonkorta si uu gubo maxay milixduna ay dhididka raacdo sonkortuna ay magaranaysa ay muscleska ama muruqyada u galaan oo qofkii uu energy power uga heli karo waayahay hadduu qofku inaha sameeyo oo kaliya isagoo aan magaranaysaay dawooyin ba isticmaalin aan maxay noloshiisa ku khamaarin waxa uu noqonayaa qof very fit ah oo maxay aan xanuun badan dareemin
marka maxay da'du sii socoto markastoo magaranaysa aanu yani si degdeg u sii xanuunsan waayo da'du markastoo badato hore qofku xanuunsada laakiin haddii markasta maxay yani raaciyo activity fiican ama mesela maxay nolol fiican ku jiro oo iska ilaalinayo waxyaabahan soo sheegnay dhamay yani da'du ku soo dedejinayso xanuunadii magaranaysa ay da'da la socon jiray waayahay channelkeen waa Somali Healthy Lifestyle One channelkan aalaaba kala xiriirnaa wixii caafimaadka quseeya like saar oo subscribe saar oo filimka ila wad baan ku yiri